Saliidda kalluunku waa mid ka mid ah waxyaabaha la isticmaalo kuwooda ugu faa'iidada badan waxaana qani ku tahay omega-3 fatty acids oo u wanaagsan caafimaadka. Haddii aanad cunin saliidda kalluunka, waxa kaaga filan inaad isticmaasho dawooyinka laga sameeyay si aad u hesho in kugu filan oo ah omega-3 fatty acids. Saliidda kalluunku waa dux ama saliid laga soo saaro noolaha kalluunka. Hay'adda Caafimaadka ee Adduunka WHO waxay soo jeedisay isbuucii ama toddobaadkii mar ama laba jeer in la cuno si loo helo faa'iidooyinka caafimaad ee ku jira ka hortagna u noqon kara xanuuno dhowra. Wadnaha. Saliidda kalluunku waxay hoos u dhigtaa qaar ka mid ah xanuunada wadnaha lala xiriiriyo, balse ma jiraan waxyaabo caddaynaya inay ka hortagi karto xanuunada sida wadne istaagga iyo faaliga ama shalalka. Maskaxda aadamuhu waxay ka samaysan tahay 60% dux, in badan oo ka mid ahna waa omega-3 fatty acids. Sidaa darteed, xanuuno badan oo maskaxda ku dhaca waxaa la arkay inay natiijo wacan oo horumar ay ka soo baxday kadib isticmaalkeeda. Buurnida ama cayilka. Buurnida ama cayilka waxaa lagu qeexaa marka halbeega lagu cabiro miisaanka oo ka hormaro 30 waxa loo yaqaano body mass index. Sidaa darteed, waxay sabab u noqon kartaa xanuunada wadnaha, macaanka nooca labaad iyo kansarka. Saliidda kalluunka waxa ay yareysaa cabirka dhexda marka la barbar dhigo cunada dheeliga tiran iyo jimicsiga. Indhaha. Sida ay maskaxdu ugu baahan tahay saliidda kalluunka ayay indhuhuna ugu baahan yihiin, waxaana ku jira maadada loo yaqaano vitamin A. Waxay ka hortagtaa xanuunada indhaha ku dhaca. Bararka jidhka. Saliidda kalluunka waxay si xooggan uga hortagtaa bararka jidhka waxaana yareysaa calaamadihiisa, gaar ahaanna kan ku dhacay isgoysyada ee loo yaqaano rheumatism-ka. Maqaarku waa xubinta ugu weyn jidhka, waxaa ku jira xaddi badan oo ah omega-3 fatty acids. Maqaarku wuu isbedelaa ama dhululmaa marka uu gaboobo ama ay cadceed badani ku dhacdo. Haddaba qaadashada saliidda kalluunka waxay naga caawisaa sidii aynu heli lahayn maqaar caafimaad qaba. Uurka. Omega-3 waxay muhiim u tahay hooyada uurka leh iyo ilmaheeda si uu u koro. Waxa ay ka kobcisaa garaadka kana caawisaa aqoonta. Beerka. Xanuunada beerka ku dhaca waxay ugu badan yihiin dadka buuran ama cayilan. Haddaba saliidda kalluunka waxay hoos u dhigtaa beer subagga, isku buuqa ama buufiska. Waxaa la saadaalinayaa in 2030 uu noqon doono xanuun sababaha labaad ee ugu badan. Sida la ogaadayna dadka uu hayo waxaa ku yar dhiigooda omega-3. Habdhaqanka iyo qalqaaliga. Qaadashada omega-3 ayaa hoos u dhigta qalqaaliga iyo habdhaqanka xun ee carruurta xilliga waxbarashada iyo korriinka. Ilowga. Dadka qaata saliidda kalluunka ayaa la ogaaday inay ka badbaadaan hoos u dhaca xasuusta ama ilowga marka ay da' noqdaan. Xiiqda ama xasaasiyadda. Cunidda xaddi badan oo kalluun ah ama saliidda kalluunka ah xilliga uurka ayaa la ogaaday in carruurnimada ay ka badbaadin karto xiiqda ama xasaasiyadda. Lafaha. Saliidda kalluunka waxaa ku jira macdano iyo fiitamiino badan sida calcium iyo vitamin D oo u wanaagsan lafaha.